hamuunta iyo hiyiga dadka bulshada halkaa ku nooli iyo rajada ay gelisay iyo dhammaan shacbiga Somaliland oo maanta berbero wada toban oo dhul wada doonaya taasi marxaati kaliya bay muujinaysaa meesha guushu taal iyo horumarku waa lagu soo ururaa meesha guul darradu taana waa laga tagaa maanta baloodka dhulka ee berberi wuxuu la qiimo yahay 3-4 jeer buu ka qiimo badan yahay intuu shalay ahaa qofku inuu fursad shaqo ka helo ama uu maanka ku qabto wuxuu ka ganacsan lahaana way ka badan tahay tii hore maalgashigu xukuumadda Axmed Siilaaye waxay aaminsan tahay iyo horumarku inuu yahay tubta kaliya ummaduhu isku dhaafaan ilaahay baa ummadaa abuuray jinsiyada yihiin midab kuma kala sareeyaan kuma kala horumaraan dalka yaalaan iyo dabeecadaha kala duwan laakiin waxay ku kala horumaraan himilada ay leeyihiin hal abuurkooda waxay ku kala horumaraan sida ay u tashadaan ummadu waliba ummadda ay ka qorshe fiican tahay kana calool adag tahay guul bay gaadhaan qorshaheed dad bulsho reer miyi baynu ahaan jirnay oo ka soo tafiiran nolol baadiye waxaynu lahaan jirnay qoyskeena miyiga jooga qorshuu lahaan jiray xilliga uu wax guurayo guul iyo xawawar iyo geedi iyo dhaan maalin walba hawl baa reerkuu joogi jiray wuxuu ahaan jiray kaliil iyo xagaa dayr iyo guul qoysku wuu qorshaysan jiray ummad ka ballaaran oo magaalo soo gashay iyo nololaha magaalooyinkuna saasoo kale ayay u leeyihiin qorshayaasha waxaan u aragnaa aaminsannahay Somaliland inay waa qaran aan la aqoonsanayn ma heli karto dayn caalamiya oo ay dalka aynu ku dhisano aynu dekada ku dhisano garoonno ku dhisano wadooyin ku dhisano ma heli karno deeq toosna cid inama siiso waxaynu la soo baxnaa cashuuraha inoo ah dakhliga inoo ah waa wax aad u yar marka loo eego dunida aynu la deriskanahay marka loo eegana waxay ka tahay waynu garanayna inagoo dadaalay oo meel hoose ka soo bilownay oo dawladii kala dambeeyay mid waliba wax qabatay oo midba meel soo gaarsiisay annagoo wax weyn ku kordhinay haddana maaha maanta waxaynu ku gashi baxi karno sidaa darteed annaku waxaanu aaminsanahay maalgashi dalka loo doono oo lagu dhiirado inay tahay dariiqa kale waddanka ku horumari karo waxaanu aaminsanahay Somaliland inay u baahan tahay saaxiibo siyaasadeed inay u baahan tahay saaxiibo dhaqaale ayaanu aaminsanahay hadba inta aynu saaxiibo helo ayaynu heli karaa maalgashi ayaynu heli karaa qarannimadeenna inay caga adag isku taagto haddaynu dunida go'doon ka gallo oo saaxiibo kasban kari weyno siyaasadeenna guduhu dibaddu waxay geli kartaa ciriiri sidaa darteed annaku waxaanu aaminsanahay ceelal yaanu dalka u nahay waayo waxaanu nahay xukuumaddii talada qarankana haysay Axmed Siilaaye waa madaxweynihii la doortay Cabdiraxmaan Sayidciin waa madaxweyne ku-xigeenkii la doortay ummaddu dee labadaa nin bay dooratay annaguna waxaanu nahay kaaliyaashoodii waxaanu ku shaqaynaa fikirkooda iyo hamigooda ayaanu xaqiijinaynaa ceelal yaanu markaa ummadda u nahay ceelalyad ummadda uma aha kuwa maqaaxyaa fadhiya ee fadhi kurdirarka tala adduunka yaqaana ee cudurrada horumar nacaybka iyo maalgashi diidka qaba ay ku dhaceen kuwaas ummadda ceelalyo uma aha xilla uma hayaan ilaahayna cidduu kala xisaabtamayo waa ciddii loo doortay ummadda Somalilandna annagay nagala xisaabtamaysaa waana la noolaan doonaa taariikh baa dunida ka hadhi doonta الرائد لا يكذب على أهله النبي عليه الصلاة والسلام وحوري نينك عيال اليداهي بهديسة بينه ما شيغو جوابه مقيها سيدو بينه وشيكرا هلكا روب باهلي هلكا يينان كو هيامي روب مهلين أنا كو حنهي رايد كاسان ماشي دوغلانو دادك او هيامينينا
go'aannu taagaynaa soo baydhaanu leenahay halkana hogol fiican heshay tallaabadii DB World ee dekada berbera aanu ku dhisayna waxay tallaabo saxa dunida oo dhan baa ka markhaati kacday dunida horumarka taqaano dhan baa nagu hambalyeysay dariiq sharci baan marinay arrinta saldhigga militarina iyadana waxaan u aragnaa ku qanacsanahay inay tahay wax faa'iido inoogu jirto dunida waxaan khasaaro lahayn iyo faa'iido lahayn ma jirto sunnaha nolosha waxay salka ku haysaa oo maqaasidda shareecada islaamku ay ka ratibantaa almafaasid wa masaalix bini aadanku meel alla meelu joogo labadaasunbuu isbarbar dhigaa maxaad faa'iido waxaa ka helaysaa maxaa khasaare ka helaysaa marka uu xisaabiyo bini aadanku wuxuu ku kala xariifsan yahay smartness kala sheegaa fiicnaanta iyo raganimadu wax kale maaha waa labadaasuu isbarbar dhigo oo uu calculation saxa soo saaro annagu waxaanu aaminsannahay khasaaraha ku jira saldhig military inuu dowladda imaaraadka siino inay ka badan tahay si weyn uga badan tahay faa'iidada aynu ka helayna imaaraadku dambuu doonayaa aynaguna dambaynu doonaynaa waan isku danaysanayna waxaa muhiima un inaynu danteenna qorno caddaato garanno waxaynu faa'iidayno berberi maanta saldhigga madaarka berberaa shalay wuxuu ahaan jiray saldhig military ruush baa dhisay wuu ka tegey horumarkii laga sameeyey kaabayaashii dhaqaale innagaa dhaxalay ma laalaaban mooskana lamuu tegin tallaabadii lagu bixiyey taariikhdu maanta waxay qiraysaa maraykan iyo ruush tallaabooyinkii lagu siiyey inaanay ahayn tallaabo khaldan dowladdii soomaaliya wax badan bay burburisay oo xumaysay oo baabi'isay oo dalkan qaniimadiisii dhacday oo ummaddii soomaaliyeed u cadaalad samayn weyday oo cadaalad darraa kala kaxaysay soomaaliya waxaa keliyaynu ka dhaxallay gebigeeduba waa maanta midho waxaa yareera berbera ka muuqda dekedda garoonka waxaasaa ka mid ah wixiina soo galay 30kii sano waxaasaynu ka dhaxal war wixii daar iyo hanti ah waa la kala dhaxlaa wixii caloola galay cidina maanta ma hayso halkay ku dambeeyeen waynu garaynaa raggii qaatayna waynu ognahay laakiin maanta waxaas de tallaabo saxay markaa ahayd waa wax laynooga tegey dunidu dee saldhigyada way bixisaa military maaha wax caagan danana way ku bixisaa ka doonayaana dan buu wataa ka laga doonayaana dantiisuu ku eegaya wuu kitaab furanayaa annaku waa u kitaab furannay waa u rognay waa gorgortannay marba gacantaanu isgelinay kordhi waar hadda lacag tuurta lagu qaada maha waxaanu leenahay kordhiya waxa weeye wax ummadda dhaxal u noqda golahaasaanu ka keenaynaa qarsan mayno meel dadbanna wax kule maanu saxeexan af dhuunyaalayna mayna lana dhuuman mayno waxaanu keenaynaa dariiqii halkii ay ahayd baanu keenaynaa waa halkii halka ugu habboonay ma suuqa ragga joogaa ma ragga fadhiya gidaaradaa maaha kuwa waxaanu hordhigaynaa ummaddu cidday dooratay ee dastuurka qaranku awoodda u siiyey inay arrimaha ka go'aan qaataan waxaanu nahay xukuumad isku kalsoon baanu nahay oo waxay aaminsan tahay fagaarayaasha keena oo aan la biqin oo odhan waxaa golaha geyn mayno anigu waxaan ahaan jiray wadana gola wakiillo ka mid a waxaanu xukuumadaha ka bari jirnay war heshiisyada keena annagu maanta annagaa la ordaynoo geynaynaa DB World baanu geynay qoori fagaaray ku war sheekota kanna waa geynaynaa golayaashu hadday diidaanna halkaasaanu kaga hadhaynaa hadday oggolaadaanna halkaasaanu ka wadaynaa cid joojin kartaana ma jirto ragga suuqa ka hanjabaya ma joojin karaan iska hadlow inay geri ayaanu leenahay waxaa weeye hadday golayaasha sharcigu naga reebaan waa u hoggaansamayna uma naqaano ceeb hadday golayaashu nagu diidaan ceeb uma naqaano wuxuu gembi baan ku dhaartaye guul kuma dhaaran annagu dee inaan wax keenno baanu amrana dowladda imaaraadka carabta waxaanu u sheegnay saldhiggaa military waxaaynu isla fahamnay laba dal dimuqraadiya baanu nahay
dal idinka duwan baanu nahay annaga boqor quri nooma taliyo madaxweyne la doortay oo shacbiga qiimeynaya codkooda iyo dareenkooda oo laba gole dhaabad u yihiin haddayna diidaan waxa kama jiraan waa ku go'naabay waxa weeye halkaasaan keenna labadii gole ummadda u tilinaya baanu hor dhigaynaa waxay aanu la gaadhnayna waanu hor dhigaynaa qarsan mayno waxay aanu la gaadhnayna xaq waxay u leeyihiin inay diidaan iyo inay ogolaadaan labadaba waa awoodooda annaguna soo karinta iyo bislayntaanu leenahay iyaguna dherika gurisay leeyihin way noo qaybsantahay xilku waxa weeye afar arrimoodba waxaanu aaminsanahay inuu wax ka tarayo xaajanimaan ogeyn indhuhu ka rida ragga suuqa ka booshaaqaya wax warnamabay weydiinba manaanu hadlin nimanay weydiin waxaanu wadno may u yimaadaan madaxweynaha qaranka hadday yihiin dad wadaniyiina oo wanaag wada oo aan cudurrada aan ka warramayay qabin may u yimaadaan madaxweynaha may noo yimaadaan war waxaana wadaan waa maxay miyaanu la dhukusaynaa soo annaga ummadda acyaanteedii ku wadna waxa weeye afar arrimoodba waxbuu ka tarayaa anigu waxaanu aaminsannahay nabadgelyada somalilan inaanay uga darayn ee ay wax weyn ku kordhin doono saldhiggaasi waaba saldhig milatariye siduu uga daraa amniga baddeenna ayuu wax ka tarayaa dhismaha ciidamadeenna amniga ayuu wax ka tari doonaa waxyaalaha saldhigyada laysu duldhigo dunidu way leedahay filimbiib baa laga sameeyey baxrayn baa leh jabuuti baa maanta leh eritrea leh ilaahay wuxuu inala maago ciday inaga celin kari mayso waxa walaaladeen way ku badhaadheen waa ku hambalaynaynaa dawladda jabuuti horumarka iyo go'aanada geesinimada leh madaxweyne ismaaciil uu qaato waddankiisiibuu ku hormariyey maalin baanu u tagnay aniga iyo wafti aan la socdo uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan wuu nala kaftamay wuxuu waryaalahe waydinkan buurihiina kala sheegtaye war dadku waxay idiin dhisayna daayo dalka horumariya warmarba carab baan meelaha uga yeedhaa iyo mid cad wararkan wax ka dhismaydha dadkaygana waxaan ku qanciya war meesha laynaga qaadan maaye waxaan innaga inoo hadhaya waa raganimo waa vision hogaamiye wuxuu ummadda kale kaga duwan yahay hal abuur buu leeyahay inta kale dadka badankiisa caamadiisu aanay keeni karin oo ay ka baqi karto waa tallaabo sax dalka Itoobiya inuu walaalanahay waa ku ammaanaynaa dhabbada horumarkay qaadeen ra'iisul wasaare Mille Zanaawi wuxuu keenay hal abuur Itoobiyadii shalay iyo maanta waa taa meeshii laga khasaafi jiray ee uskaga iyo dib u dhaca ku caankahay maanta waxay ka mid tahay caasimadaha dunida ugu korinta badan bay ka mid tahay waa hal abuur kaakiisa laynaga rabaa ku iman maayo ma qabna annagu kaasi inuu ku imanayo ra'yiga ah diidni iyo cidiye inoo soo gelin iyo waxayna la dhacayaa annagu ma qabno iyo ra'yiga ah cudurrada ah ninkii meel inooga yimaado wax inooga keena ee inaano wallahi kaasi waa reer hibil wallahi kaasi dambu kaliya waxa annagu cudurrada xor baanu kana waxaanu maslaxadda ummadan cidina noogama la jecel badna waa kuma ninka Axmed Siinayo uga la jecel badan wadankan waa kuma annaguna waxaanu nahay ardadu u tababaray cidina noogama la jecel badna waa u soo taagnay dib u dhiskiis xoreyntiisii baanu ka qayb qaadanay horumarkiisii baan dib u dhiskii nabadeyntiisii baanu ka qayb qaadanay dib u dhiskiisii baanu ka qayb qaadanay raggaas oo dhami nin bedelka waxbuu ku leeyahay tacaba horumar sidaa darteed nabadgelyada waddankan uga biqi mayno inuu uga daro mashruucani waxbuu ku kordhinayaa xaqaa'iqna waanu keenaynaa iyo dalaa'il awhaam iyo mala awaal ummadda ku khawaysiin mayno saldhigyada military waxaa loo samaystaa inay abuuraan nabadgelyo xuluf baynu noqonaynaa annagu waxaanu aaminsannahay inaynu samaysanno saaxiibbo aynu maalmaha adag israaci karno waxaanu aaminsannahay inaynu saaxiibbadeennii hore haysanno waxaanu aaminsannahay inaynu saaxiibbadeenna isku tolonno ayaanu aaminsannahay saaxiib qura uma baahnin waxaynu u baahannahay konton saaxiib ayaynu u baahannahay saaxiibbadeenna inaynu isku wadno waa xilka iyo xirfadda iyo xeeladda hogaamiyaha qaranka saaran amniga mandiqadda
وحبو كسو كورنيا وحبك حمين مايو رق صاحب بين يسكينا رق علنا يسكين مين halkan dalka Masar waxaanu beeninayna wax saameeyna iyo wax raada iyo wax luga saldhigga military ee berbera kuma leh dawladda